habeen kale iyo ciriiriga wadada Jaalisiyaad iyo argada Daynile u dhaxaysa. muddo bil ah xilliyada habeenkii waxaa ku yaraa ciriiriga iyo saxmadda xad-dhaafka ah ee gaadiidka, laakiin bil kadib halkaani waxay ku soo laabanaysaa wejigii lagu yaqiin. layaabna ma lahan in waqtigii kaga bixi jiray shacabka uu haddana kaga baxo. xalay oo kale waxay ahayd habeen ciriirigu gaaray heerkii lagu yaqiin. sheekooyin u muuqda inay dhowaan kasii dhammaanayeen. maqalka dhigaha mar walba oo laga hadlayo maritaanka laambiyada caasimadda ayaa hadda sidoo kale soo laba kacleeyey. qaar badan oo dadweynaha adeegsada wadadan ka mid ah kani ma ahan muuqaal aysan filanayn, waa waxay ogaayeen inaysan huri doonin, sidaa darteed hubaal-aan ayay u soo aadaan. xitaa gudaha bisha Ramadaan ciriirigu ma ahayn mid isbedelay, kaliya waqtiga gaadiidku madaxa uu isla gelayo ayaa isbedel ku yimid, oo halkii ay badana ahayd habeenkii wuxuu inta badan noqday galbihii, xilliyada ay dadku usoo degdegayaan guryahooda si ay ugu afuraan. muqdisho ma ahan oo keliya caasimad dhabarka u ridanaysa qaabilidda maciishada dadyawa kala heerka ka jooga dabaqyada nolosha, waxay sidoo kale la ciirciiraysaa xaddiga gaadiidka tirada dhaafay ee dhinacyada waddooyinka iskaga imaanaya, kuwaas oo kol haddii aysan jirin kala maaraynta taraafikada ay iskood u doortaan inay hadba sida ugu fudud isku maareeyaan. mushkiladaha ka dhalanayana waa dhowr. laamiga dheer ee Jaalisiyaadna kumaba sii jiro. barnaamijka Musaafir wuxuu marar badan ka qoray sheekooyin ku saabsan dhibta ay shacabku ku qabaan marideeda, balse ilaa iyo hadda ma jiro maamul u soo jeestay inuu xalkeeda la yimaado. xitaa xeryooyinka milatari ee dhinaca kaga yaal wadada xil iskama saarayaan inay hubiyaan isku socod sahlan in wadadan lagu maro. waaba sida in lagula ballamay inay shayda uun ka eegaan waxa ciriirigu badayo shacabweynaha ishortuban. maamulada degmooyinka Hodan iyo Daynile waxaa ugu yaraan la gudboon inay isku taagaan maaraynta mushkiladan oo qaadiyaan ay ka joogaan bulshada iyo gaadiidka adeegsada. waa haddii ay weli jirto turis shacab iyo ka jawaabis mas-uuliyadeed. haddiise sidii hore ay xaaladdu iska noqoto, waqtiyada dadweynaha kale bulshooyinkooda uga baxa socdaalka iyo safarka mid kasii 100 jibaar badan ayaa uga bixi doona dadweynaha caasimadda Soomaaliya ku nool. taasina waxaa ka dhalan doonta cuuryaamid dhaqaalaha iyo ganacsiga, badbaadinta iyo daryeelka shacabweynaha ballaaran ee qaarkood laga yaabo in daqiiqad yar oo wax lagu qaban karay ay ku waayi doonaan ciriiriga dhexdiisa. fadlan baahi oo la wadaag asxaabtaada si maamulka gobolku arrintan u soo farageliyo.